Arsenal ayaa laga yaabaa inay magacaawdo isla kooxdii ay ku bilaabatay guushii Community Shield-ka iyadoo saxiixii rikoorka ahaa ee Declan Rice uu qarka u saaran yahay inuu ciyaaro kulankiisii ugu horeeyay horyaalka Premier League wadankaas Ingiriiska. Naadiga Nottingham Forest ayaa laga yaabaa in kulankiisii ugu horeeyay u gacan geliso goolhayihii hore kooxda Gunners Matt Turner. Gooldhaliyaha ugu sareeya xilli ciyaareedkii hore Tawa Oni ayaa ku soo laabtay tababarka laakiin waxa uu la dhibaatoonayaa inuu ka soo kabto dhaawac anqowga ah. Antonio Alanga ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu u safto kulankiisii ugu horeeyay Forest kadib markii 15 milyan oo gani uga soo dhaqaaqay naadiga Manchester United xagaagani. Arsenal wax guul darro ah lama kulmin 12 kulan ee garoonkeeda kula ciyaartay naadiga Nottingham Forest tartamadoo dhan iyadoo badisay 8 kulan halka ay barbara gashay 4 kulan oo ay ku jirto 2 gool oo 5-0 ay markaa ku garaacday Emirates. naadiga Nottingham Forest ayaa 1-0 ku garaacday Arsenal gurigeeda xilli ciyaareedkii hore si ay u xaqiijiso badbaadada Premier League waxaana ay raadinayaan guulo xiriir ah Gunners markii ugu horeysay tan iyo September 1978. guushii ugu dambeysay naadiga Forest ku gaarto meel ka baxsan garoonkeeda waxay ahayd 3-1 ay ku badiyeen Hillsborough bishii March 1989. Arsenal ayaa 248 maalmood ku qaadatay hoggaanka horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii hore waana rikoor u dhigma kooxda ku guuldareysatay inay qaado horyaalka. kooxda ka dhisan waqooyiga London ayaa heshay 26 guulood Premier League xilli ciyaareedkii hore 2022-2023. Gunners ayaa laga badiyay kulankeedii furitaanka Premier League 4 ka mid ah 6 xilli ciyaareed ee ugu dambeysay marka ay xilli ciyaareedkan ku bilowdaan garoonkooda iyagoo badiyay 2 kulan ee kale. kooxda Mikel Arteta ayaa shabaqeeda ilaashatay 4 kulan horyaalka ah xilli ciyaareedkii hore inkastoo mid ka mid ah uu yimid kulankii 5-0 ay kaga badiyeen Nottingham Forest bishii October. Gabriel Martinelli ayaa dhaliyay 3 gool 2 kulan ee gurigooda ay kula ciyaartay Forest tartamadoo dhan. naadiga Nottingham Forest ayaa laga badiyay kulankoodii furitaanka horyaalka 4 xilli ciyaareed ee la soo dhaafay. ma aysan bilaabin olole horyaalka guul marti ah tan iyo markii Kevin Campbell uu dhaliyay gool 1-0 ay kaga badiyeen Portobello heerka 1997 ilaa 1998. naadiga Nottingham Forest ayaa haysatay rikoorkii ugu xumaa meel ka baxsan garoonka xilli ciyaareedkii hore iyagoo markaas helay 8 dhibcood. kooxda Stephen Cooper ayaa ku fashilantay inay wax gool ah ka dhaliso kulamada martida ay u tahay 4 kooxood ee ugu sareysay xilli ciyaareedkii hore waxaana laga dhaliyay 16 gool kulamadaasi. guusha kaliya 14 kulan ee ugu dambeysay Premier League ay booqatay caasimadda waxay ahayd 3-1 ay kaga badiyeen Wimbledon bishii March 1999. haddaba ciyaartan ayaa soo gali doonta 8 saac duhurnimo xilliga Geeska Afrika waana ciyaar xiiso badan oo ay Arsenal rajeynayso inay guul gaarto.